Soomaalidu dhamaan waa salaamantiin waxaan antaana shacabka Soomaaliyeed waxaan ka qiiroonaynaa madaxweynaheena kulli dhamaan madaxdeena sharafta leh waxaan rabnaa in wax walba ay noo suubiyeen xildhibaanada wasiirada kulli iga go'aanka ay gaareen waa ku raacsanahay madaxweynaheena kor Allah ka dhigo bismillaahir rahmaanir rahiim haddaanahay shacabka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaheena ra'iisul wasaaraha maamulka dawladdeena madaxweynihii ugu horeeyay oo ka dhawaajiyay inuu raadiyo xuquuqda Soomaaliyeed waxaan leenahay noolow madaxweyne noolow xuquuqda Muqdisho ayuu noo raadiyay noona soo dhiciyay madaxweynihii ugu horeeyay noolow madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan u soo banaan baxay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu ku dhawaaqay inay maqaam yeelato magaalada Muqdisho wayna mudan tahay inay maqaam hesho magaalada Muqdisho mudan madaxweyne waxa taa madaxweynihii ugu horeeyay ee u dhaha Muqdisho waxay yeelanaysaa maqaam waana kaaga mahad celinaynaa mudan madaxweyne masiiba intii darayd asaan naga meel marshay waraa wada muuqaloon markale soo doorane waraa wada muuqaloon markale soo doorane waraa wada muuqaloon markale soo doorane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعسى محمد عمر وحان كترسنا أورك هوينك قرنك مانت وحان أصاب بنام بحني إنا مدحوينها كل مدة أو شلي قبل كبنادر مقام كيس أنا كنت أجر سنة هاي أونلاين مر لبعض صار نخو وأنا كنت مدحويني وجور مقام بنادر أو كهدلو أنا جو ولي بخاص أهان أنا جو حزبي محل طيو نبض إيه نلول أنا هاي وحان كنت أجر سنة هاي ومقعي عسى محمد الله مدحوينه وجور مقام مع مقدسه أو كهدلو أنا أصاب بنام بحني وأنا كنت أجر سنة أورك هوينك قرنك هدانا هاي الحمد لله ما أنت وانصاب بنام بحناي وحن أصاب بنام بحناي الصومالي نمو أن وذجر مدنمو أن محي هذا تاجر الدولة تاجر مدحوينه فرماجو محمد عبد الله أيان أصاب بحناي أنا قم سجى مرة بنو دولة نمان ربنا ودنيين أن ربنا تعلوين كيو دسي محي هذا وضلي يو دسي مدحوينه محمد عبد الله فرماجو عام بقول يا طبعا يا عفرت السلام يا waxaan taageeraynaa madaxweynaheena dib iyo rafaad horaan u soo marna dib iyo rafaad kalena ma rabno alxamdulillah shukr ilaahay noo gargaaray madaxweynaheena oo ciidamada Soomaaliyeed qanciyay oo mushaarkooda bil daa'ima siiyo diyaaraan u nahay dib iyo dagaalna ma rabno madaxweyne jir oo joog wiligaana taagnow anagoo ummadda Soomaaliyeed siiba degmada Cabdicasiis madaxweynaheena rabnaa madaxweynaheena waxaan ma rabno madaxweynaheena waa taageeraynaa waana jecelnahay waxaana ku taageeraynaa ciidamadeena 20 bisha mushaarka u soo dhacayaan ku taageeraynaa waligood meena arkin 20 bisha mushaar u soo dhacayo farmaajo gul soo dhawow rabita gay farmaajo soo dhawow madaxweynahayga maxamed farmaajo waan taageerayaa waxa aan leeyahay maanta sidoo noo qaabilay haddaan nahay dawlad iyo haddaan nahay shacab wuuna taageeray madaxda ciidanka yaga ciidan maanu lahaan jirin hadda ciidan aan leenahay qarana oo hubaysan oo cid kasta daafici kara ayaan leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo ha noolaado waxa uu wataynayaa halaha uu ka soo badbaadiyay cadowga oo ka keenay kuwii xirnaa iyo kuwii oo gaajada haysi oo ka keenay dibadda ka keenay iyo kuwa kordhow oo keenay mashaar aan qaatay waxay u horeysay farmaajo dadka kale waxa waaye qabiil hebel ah qabiil iyo qabiil ba ku shaqeeyaa bis waay nin maskiin wax ba helayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو هني قاد لايو دلنيرada aad ugu faraxsan nahay hadalka shalay madaxweynaha oo ah inuu maqaamka caasimadda laga hadlo caasimadda sida wada ognahay dad badan ku nool aad ugu faraxsan hadana dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir qaasatan degmada Cabdicasiis waa soo dhaweynayna madaxweyne aad u mahadsan tahay soo noqo mar labaad aad ugu faraxsan nahay habqabadka waxa noo sameeyay iyo shaqadaada wanaagsan